shirka maamul samaynta gobolada Koonfur Galbeed ee ka soconaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa maanta waxa looga dhawaaqay guddiga hagaya habsami socodka shirkaasi. Wariyaheena Abshir Mandela ayaa faahfaahinta warkaasi nooga soo diray magaalada Baydhabo. munaasabadan oo ahayd mid markaasi lagu shaacinayay guddiga steering committee-ga hagi lahaa shirka lagu dhisayo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee ka soconaya magaalada Baydhabo ilaa inta laga dhisayo guddiga doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Guddigan oo ka kooban 31 xubnood oo ka kala yimid 6 gobol ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya uu ka kooban yahay dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Baay kan degmada Baydhabo iyo dhamaanba ergooyinka iyo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, fanaaniinta gobolada Hargeysa, Baydhabo iyo Muqdisho. Waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Baay, gudoomiyaha guddiga odayaasha dhaqanka, gudoomiyaha guddiga steering committee-ga ee cusub qaybaha kale ee bulshada. madaxweynaha inta anigu wakiil ku aadin wala ay sababta aniga sheegaysa wala gudbiye madaxweynaha wala ku sheegay wala aflagaatay yoos ku dhaaf waa eedan hoose taas muwaale wala ay dadka fadayaan bulshada fadayaan yoo la dareeray markay dawladda bulshada ka fasirta dad ay hasiin ka bedelisan karnay madaxweynaha wala ku sheegay inuu madaxweynaha amaanan beemu siyaaso yoo ay sameeyay ما ظهر هذا الدين تجار كذا والدولة ده ولا غنون بس أيدي steering committee اللي قررت أو لون كنا كجاري وأنا دعت وقتها نقول يا ولودن وأنا قوة شقيته هدينا هديد والأول ولا يكون من بعضهم ولا من طرف سلمان وأنا شغال نسدل غير بسيجي بول كيسي تومتي ولود كجاري لبعضك هرتي دوني بحاجة كمسألة وشوي أبيسنا سليس هرمان وراهم كلامي أركض أوشي تونسا شدني أو كلامي أوشي كابتن أنسوغني سنة يو بلوي أو أنها كأفرني أيام نتيجة الكواب أيامان تبلاوتي برينا وحنسوغنا إن جدّيغا سياسة هوشولا si wadajir ah si cadaalad ah si siman ah ka soo baxaan oo dadajiyaan oo kadibna si degdeg madaxweynihii xigeenadii baarlamaankiina aan guda galno ayaan sugaynaa. qodobka saddexaad samaynta guddiga steering committee ee shirka hagi lahaa oo ka kooban deegaan wadaagta 6 gobol Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaana ansixinaya odayaasha dhaqanka. qodobka afraad magacaabista guddi kooban oo soo diyaariya dastuur meel gaar ah oo ay yeelato dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. qodobka shanaad diyaarinta iyo soo bandhigidda shaxda ergada. qodobka lixaad furitaanka shirka. qodobka toddobaad doorashada shirguddoonka. qodobka siddeedaad heshiisiin caam ah oo la isku cafiyo. qodobka sagaalaad dhammaystirka liiska saxda ah ee odayaal dhaqameed. si kastaba ha ahaatee guddigan steering committee-ga ee cusub ee maanta lagu dhawaaqay ayaa la filayaa in uu hawshani wadi doono ilaa laga gaarayo guddiga doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Abshir Maxamed Nuur, Haya TV, magaalada